رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إيانا وإياكم من الفتن وضلالات. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني في الله، waxaanu ku soo guda jirnay fadaa'ilu shahru ramadaan oo aynu axaadiis yar oo xoogaa ka soo qaadanay. maantana waxaan rabaa insha allah biidni illaahi tacaala, iyadoon la soo koobi karaynin marnaba, inaan ku soo 5 xadiis inaan ku soo gebagabayno fadaa'ilu shahr ramadaan oo aynu howlaheeda kala sii gudageli doona insha allah beriyo wixii nooga dambeeyaba. fadaa'ilu shahr ramadaankeedu waxaa ka mida walaalayaal, qofka markuu sooman yahay uu soomo oo Allah subxaanahu wa tacaala dartii uu soomo, riyaa iyo istusnimo iyo calaamaat almunaafiqiin ay ka maran tahay walciyaadu billaah, soomkaagaas yahay soom ikhlaas lilaahi subxaanahu wa tacaala walimutaabacati nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam, inaad ilaahay dartii aad u soontay oo magaranaysaa haddana ay tahay mutaabaca rasuul sal alla alay slam, rasuulka inaad sifaadkii uu soomay siduu u soomay inaad u soonto. waxaan uga jeedaa inaad ilaahay dartii u soontay ilaa marka horeba soomka waxa loo soomay ilaahay dartiiya. waxaan uga jeedaa waa inay niyadaada way ka maran tahay wax la yidhaahdo ku faanitaan, war aniga mid igamay tegin iyo anugu waan duldhigay iyo saasaa markaa ay ka maran tahay, iyo inaad qof kale oon soomanayn ama soomkiisa aan markaa awoodin ama aan ilaahayba u qadarin subxaanahu wa tacaala uu isagu iska dhiban yahay, inaad ugu faanfaanto oo faana meesha ay ka baxdo. mutaabacana waxaa looga jeedaa nebi maxamed siduu u soomay calayhi salaatu wasalaam. waa inaad xanta ka dheeraataa, waa inaad been ka dheeraataa, waa inaad ribo ka dheeraataa, xaaraan inaad ku suxuurato, xaaraanna ku afurto waa inaad ka dheeraataa. shay kasta oo Allah subxaanahu wa tacaala raali gelinayna waa inaad ku dadaashaa. intaas soonkaas markuu saa uu kuu noqdo, wuxuu noqonayaa soonkaasi mid aakhiro kuu dooda, siduu nebi maxamed inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam. culimmadu waxay leedahay asawmu yashfacu lisaaxibihi yowma alqiyaama. soomku wuxuu u shafeeco qaadaa, yani wuxuu u ergeeyaa saaxiibkiis maalinta yowma alqiyaamaha. rasuulkaana inoo sheegay inuu u erge qaaday, wuxuu leeyahay: qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam: asiyaamu walqur'aanu yashfacaani lilcabd. qur'aanka iyo soonka bisha ramadaan, soomkaas iyo qur'aanku wuxuu noqdaa maxay mid u shafeecaya maalinta yowma alqiyaame addoonkii usoo camal fali jiray ee sida ilaahay u amra uu leeman jiray. yowma alqiyaamati, maalinta yowma alqiyaamaha ayuu shafeeco qaadaya. yaquulu isagoo ku leh ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la hadlaya: asiyaamu siyaamkii, ay rabbi rabbigayow, manactahu طacaamahu wa shahawaatuhu binnahaar. ilaahayow waxaan maartay ka manacay ama aan u diiday cuntadii uu cuni lahaa iyo shahawaadkii uu gudan lahaa
iyadoo waliba maalin ay tahay rabadaanta gudaheedii fashaficnii ilaahayow in sababteeda ugu shafeec oo ilaahay shafeecadiisa iga aqbal fiihi waxaa kaloo arkaa maalinkaas dhexdiisa markaa yowmalqiyaamaha hadli doona wayaquulu wuxuu odhan doonaa qur-aankuna manactuhu waxaan ka manciyey rabbigayow manactuhu waxaan ka manciyey annawma billeyli habeenkii inuu seexdo uu caado u seexdo ayaan ka manciyey rabbigayow fashaficnii fiihi ilaahayow igu shafeec oo shafeecadeeda iga aqbal qaale fayashfacaan saasay ugu shafeeco qaadayaan buu rasuulku leh calayhi salaatu wassalaam waxaa markaa aynu ka faa'iidaysanaynaa xadiiskan sifaadka aynu soo sheegnay soomkaagu markuu yahay inuu noqon doono mid kuu doodaya uu noqon doono mid magaranaysaay alla subxaanahu wa tacaala agtiisa erga kugu noqon doono ilaahayna ha inooga dhigo soomkaynu soomannahay kuwii ergo ilaahay subxaanahu wa tacaala uga dhigo soomkooda aynu soomkooda indhaha lagaga dhufan allah inaga dhigo subxaanahu wa tacaala qur-aanka laftigiisuna inaad akhriso waa bishii uu soo degay waa bishii uu sharafta iyo karaamada uu ku lahaa markaad akhrisana ajarkiisu waa kuu sii labalaabnaanayaa bal iska dhaafo waa kuu doodayaa maalinta yowma alqiyaamaha xadiiskaa waxaa warinaya warawaahu axmed waalxaakim saxiix axmed iyo ibn xaakim waxay ku warinayaan saxiixoogay ku warinayaan fadliga waxaa kaloo ka mida soomka asaa'imuuna u fiirsaada asaa'imuuna yadkhuluuna aljanna min baabi rayaan dadka soomani waa dad jannada gelaya kana gelaya albaabka la yidhahdo baabu rayaan cid kaloo iyaga soo labaysaana geli mayso dadka soomana keliya mooyaane asaa'imuun oo keliyaa geli doona bal iska dhaafa albaabkaasaa looga yeeri doonaa mid dhawaaqa u dhawaaqi doona markaasuu albaabkaa uga dhawaaqi doonaa waxaa rasuulku leh calayhi salaatu wassalaam waman kaana ahli siyaam duciya min baabi rayaan albaabkaas la yidhaahdo dadka waxay ahaadeen ahli siyaamka duciya qaar looga yeeri doono min baabi rayaan rawaahu sheekhaan waxaa warinaya muslim iyo bukhaari baa warinaya xadiiskaas waxaanu ka faa'iidaysanaynaa markaas xadiiskaa laftigiisa oo faa'iida inoogu jirtaa waxay tahay in rasuulku inoogu bishaareeyey maalinta yowmalqiyaamaha in ma garanaysaaye ay noqonayso albaabkaas in looga yeedhi doono ahlu siyaamka oo keliyaata rasuulka bishaaradiisana waa runo oo ilaahay baaba kuu sheega ku yidhi wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyin yuuxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo tilmaamay nebi maxamed iskama hadlo ilaa wuxuu u hadlaa oo keliyaata wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiisu waxyi uu yahay saa la ajligeed walu fiirso saa la ajligeed rasuulka calayhi salaatu wassalaam xadiis kale wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam yabcadu allahu subxaanahu wa tacaala can isaa'im xara jahannama 70 sana maalinta yowma alqiyaame ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka fogeeyaa qofka bilow aadmiga ah ee saa'imka ah 70 sannadood in loo socdo ayaa kuleelka jahannamo agtiisa laga fogeeyaa wejigiisa laga fogeeyaa rasuulku calayhi salaatu wassalaam ومحاي نوع عدينية حديث كان رسولك نوع عدينية عليه الصلاة والسلام ورسولك لي من صام يوما في سبيل الله باعد الله وفرسه باعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه 70 خريفا والرسول لي عليه الصلاة والسلام قفك أصوم إلهي درتي مع الانتاس وحتى هدو قفك سبحان الله بل وفرسه هدو جهاد حتى هدو كجره culamada qaar waxay leeyihiin markuu qofku jihaadka uu ku jiro haddii uu haddana uu ku daro soonka waa labada shay ee ugu adag bay yidhahdeen culammadu soomkii waxaa loo baahan yahay waa akil iyo wuxuu bahnaanayaa iyo sharaab biyo cabo iyo cunto cuno dagaalkiina waa daal iyo tacab weeyaanoo markuu noogo ama uu fadhiisto ama uu daalo wuxuu bahnaanayaa cunto iyo magaranaysaa wuxuu bahnaanayaa iyo biyuu bahnaanayaa labadaa haddaba xataa ninka isku dara waa ninka ugu ajarka badan la caalamka weeye oo ilaahayna subxaanahu wa tacaala 70 sannadood cafwan ayaa laga fogeyn doonaa wejigiisa naarta in loo socdo marka waxaa wanaagsan qofku xataa soomka oo keliya maaha
waxa kale rasuulku uu yiri calayhi salaatu wasalaam ninka sooma man saama shahr ramadaan wa atba'u 6 shawaal kaannama saama dahr ninka sooma bisha ramadaan liku raaciyana 6 shawaal ka raaciya wuxuu ka dhigan yahay kaannama huwa saama ad-dahr يعني سند دنبا inuu soomay ayuu la mid yahay saala ajligeed ayaa markaa waxa meesha yaala inaynu ka faa'iideysano soonka iyo cibaadada iyo Allah subhanahu wa ta'ala ajri xasanaadka iyo fadliga Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay waxaana xadiiska warinaya oo markaa xadiiskaas rawaahu Nasaa'i wa Ibn Maajah Nasaa'i Ibn Maajah warinaya saxiix ay ku warinayaan iyo saxiixooda ku warinaya kitaabkooda saxiixaya ku warinaya warawaahu shaykhaan imaam muslim imaam bukhaarina way la warinayaan iyaguna waa warinayaan waxa kaloo sugnaatay oo markaa laftigeeda ahaatay bisha ramadaan dhexdeeda waxa kaloo sugnaatay oo fadligeeda kamid ahaatay waxa weeye walaalayaal فيه تفتح الجنة وتغلق النار وتصفد الشياطين ترغيبا للعاملين وحويان بشهر رمضان فلدقيدا وحا كلو كميدا إن البابدي جنة لفرو البابدي نارها لحرو شياطين تنا لحرحرو وكود حن كبابيرتا إمارتي takhaquska ku soo takhasusay sidoo umada u baadiyeen lahaa ama dhibaato u gelin lahaa kuwaasoo midhan baa laga xirxirayaa markaa rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam idaa dakhala ramadaana hadday bisha ramadaan soo gasho futixat abwaabul janna albaabaha jannada la furaa wa quliqat abwaabun naar albaabada naartana waa la xiraa wa sulsilati shayaatiin shaytaamadana silsilada ayaa lagu xirxiraa رواية كلنا وحي لهذا وسفدت الشياطين تلفتوده أيام مركا على حرحريا لبدا صفة وكسارتي متفق عليه وأنا حديث يسوى فقسيهين إمام مسلم إمام البخاري وحين كفايدي سنة حديث كان الشيطان كوكو بورين لها أما كوكو ديرقل لها حمانته يظلمي هي مصيبة كوكو بورين لها أيام لغا حرحري waxa lagu soo daayo kaliya waa naftaadii lagu ka adkow hadaa naftaada ka adkaato sidoo Ilaahay kuugu tala galay aad u dhaqanto Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka dhigaya ku guuleystay marka insha Allah bidna ta'ala bisha ramadaan waxa kale oo kamid ah fadligeeda iyo faa'iidada ku jirta fihi laylatul qadri ayaa ku jira waa ku raayeen rasuulullah alayhi salatu wasalaam lillahi fi laylatul khayru min alf shahr إلهنا وكونات مأموري إن أنزل الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح وفرسو إن أنزل الله في ليلة القدر أنا وحن سودة شينا أنا سودة شيني ليلة القدر القرآن سودة شيني وما أدراك ما ليلة القدر هبينك ليلة القدر قام حاكو قيسي وكبري ليلة القدر إله بكا ورما يكور وحوي ليلة القدر قاسي خير من 1000 شهر ومثك خير بدن كم بلوتك خير بدن تنزل الملائكة وحنا سودة دونتا هبينكاس ملائكة دنبا سودة دونتا والروح يسوع ولي ملك جبريل ولا صعده ayaa soo degi doona marka khayrka ay leedahay bisha ramadaan bay kamid tahay fadliga ay leedahay habeenkaasna inta ugu badan ayuu Allah subhanahu wa ta'ala oo qoortooda ku xoreeyaa naarta wax kasto khayr iyo ajri xasanaadan oo marka Ilaahay u qorana waa u soo dadashiya insha Allah biidhnilaahi ta'ala xadiiska rasuulku alayhi salatu wasalaam isla xadiiskaas man hurrima khayraha in alla cidda hadaba bisha ramadaan khayrkeeda marka xurmaysa faqad xurma xaqada wala xurmay yaana maxaa yeelay dad ba waxa jira inay meelahaas ay iyaguna ay yiraahdaan waa soomana meelahana xaraan ku kariyaan waan xurmaynin bishii ramadaan oon xaq dhowrin taasina waa mid aan banaanayn shilinku ka cunayo iyo shilinku ka iibsanayo iyo shilinku uu ka faa'iidayo intuba waa xaraan wuxuu ka iibsadaana waa xaraan wuxuu ku cunaana waa xaraan
wuxuu ku quudiyaa ubadkiisana waa xaaraan wey walciyaadu billaah. saxiixu tarqiib wa tarhiib ayuu ku jiraa xadiiskaasina. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa uu ilaahay ku guuleeyo ee ilaahay ku sharfo inuu ilaahay naga dhigo subxaanahu watacaala xalaasha xalaal quudashada. ilaahayna inaga aqbalo soonkeena iyo salaadeenna. shay kastoon hagaajiyeyna ilaahay rasuulkiisa ka sugnaatay, wax kastoon halleeyeyna naftayda iyo shaytaan bay ka sugnaatay. wixii aan hagaajiyeyna miisaanka xasanaadka allah inoo wada saaro, keena akhrinaya iyo keena dhegaysanaya. shay kastoon kharibayna ilaahay dembigeeda iyo dunuubteeda allah inaga cafiyo. ilaahayna khayr ha noogu bedelo ajri xasanaad. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.